daawadayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena isku xidhka booliska iyo bulshada. barnaamijkeena toddobaadkan ayaa waxaan kusoo qaadanaynaa darajasiin loo sameeyey ciidanka booliska ee ka howlgala gobolka Liibaan. booliska dowlad deegaanka Soomaalida oo soo maray marxalado kala duwan ayay xukuumadihii ugu dambeeyay ku sameeyeen tacadiyo iyo meel ka dhac aanay xaq u lahayn, sidoo kalena meesha laga saaray dhammaan xuquuqihii ay lahaayeen. booliska deegaanka Soomaalida oo la dafiri karin qalinta muuqata uu ku leeyahay dhismaha xasiloonida nabadgelyo deegaanka ayaa waxaa dib u dhis lagu sameeyay qaab dhismeedkii uu lahaa boolisku kadib markii dalka iyo deegaankaba ay ka dhaceen isbedel ballaaran. waxaa dib loo soo celiyay dhammaan ciidamadii iyo saraakiishii kala duwanaa ee booliska ee sida sharci darrada ah shaqooyinka ummadda u hayeen looga celiyay. komishanka booliska dowlad deegaanka Soomaalida ayaa dejiyay qorshayaal iyo istaraatiijiyado dib loogu yagleelayo haykalkii boolisnimo ee laga maarmaanka ahaa. waxaa la dhisay waxyihii ama qaybihii kala duwanaa ee booliska uu ka koobnaa sida qaybaha dambi ka hortagga, dambi baarista iyo qaybihii kale. haddaba markaan hoos ugu dhaadhaco barnaamijkeena toddobaadkan ayaa waxaan ku eegaynaa xaflad siyaar sare ah loo soo agaasimay oo darajooyin loogu qaybinayay xubnaha ciidanka booliska ee ka howlgala gobolka Liibaan. xafladan oo darajooyin dalacsiina loogu sameynayay 56 xubnood oo ka mid ah saraakiisha booliska ee gobolkaasi Liibaan ayaa waxaa munaasabadaasi ka soo qayb galay maamulka gobolka Liibaan. taliyaha booliska ee gobolka Liibaan gaashaanla sare Ibraahim Axmed Khalifa ayaa isaguna halkaasi kula hadlay ciidanka booliska ee dalacsiimaha loo sameynayay iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa ka warbixiyay marxaladihii kala duwana ee ciidanka booliska deegaanka Soomaalida uu soo maray. waa dalacsiinta ciidanka booliska ee gobolka Liibaan waa maalin taariikhi ah, waa maalin macno weyn loogu fadhiyo, waa maalin maamuus qaali ah loogu fadhiyo sharaftayada iyo sharafta gobolka. tusaale waxaan saa u leeyahay waa markii koowaad oo ciidanka booliska oo dalacaya darajooyinka noocyadooda kala gedisan ku dalacaya xaruntii gobolka intii lagu soo dhaadhiciyo halkan aan loogu labisno waa sharaf iyo haybad ilaahay la siiyey wayaan taasi. intaas haddaan ka sii gudbo halkan kale waxaa ku dalacaya maanta 56 xubnood oo booliskii gobolka Liibaan. 56 xubnood ee halkan maanta ku dalacaysa darajooyinka ay kala qaadanayaan. gaashaanla sare waa 2, gaashaanla dhexe waa 9, gaashaanla waa 14, 3 xidig la 14, 2 xidig la 8, xidig la 2, saajin sare 6, saajin 2. darajooyinkaas oo ah darajooyinku noocyada ay ka kooban yihiin dhammaan markii korneel gaashaanla sare iyo wixii ka hooseeya la sheegayo weyaan ayay kala qaadanayaan. maanta waxaa maanta sharaf iyo haybad qaali inoo ah, farxad inoo ah inaan halkan ugu labisayno saraakiisheenna dalacday kuwaasi oo ah kuwii mutaystay sugay amniga ilaaliyo saraynta sharciga weeyaan. dardaarankan xilligeeda ayaan ka dhigi doonaa. saraakiisha halkankadii ku dalacaysa waxaan kula dardaarmaynaa iyagana oo aan u raacinaynaa in ay ka midho dhaliyaan saraynta sharciga, midnimada hay'adaha amniga, midnimada bulshada, dhammaan inaad ka midho dhalisaan iyo dardaaranku noqonayaa idinkoo ka duulaya sharciga. waa horumarkii, waa furihii, waa dhammaan, waa lafdhabartii ilayskii bulshada, waa saraynta sharciga. taasaan wax dardaarmana inaad inkuna si adkaysana bilaha yidhaahdo. booliskii dalkaanaho daryeel shacabkeena iyo sharaftiyo dowladnimo dastuurka ilaalintiisa nabadeganaashaheeda durus badan laygu siiyey. booliskii dalkaanaho daryeel shacabkeena iyo sharaftiyo dowladnimo dastuurka ilaalintiisa nabadeganaashaheeda durus badan laygu siiyey. booliskii dalkaanaho diriska waxaan u qaaday
socdo midkii tagay dabagalkiisa ilaalinta danaha guud ayaanu diyaarsanahay booliskii dalkaan ahoo deriska waxaanu qaaday dambiga dhacay midkiyo difaaca ka soo socdo midkii tagay dabagalkiisa ilaalinta danaha guud ayaanu diyaarsanahay waxaan mahadnaqayaa cid kasta ee ka qayb qaadatay ilaa heer deegaan heer gobol xalfadan quruxda badan oo lagu guddoonsiinaya saraakiisha booliska gobolka Hiiraan taa kadib waxaan wax yar inaan rabaa saraakiisha booliska gobolka Hiiraan oo ugu horeeya korneelka komishinka Ibrahim waan ognahay dadaaladii nabadgelyo ee booliska uu ka soo geystay gobolkan dal iyo deegaanba ujeedkii darajada loo bixinayo waxa weeyaan in lagu xaqiijiyo nabadgelyada maadaama booliska uu yahay aabaha nabadgelyada xagga shuruucda waxaan ognahay inaan xusaan rabaa wixii ka horreeyay isbeddelkii 3 sano dhibaatooyinkii booliska loo geystay iyadoo garabcasa lagu xareeyay oo dhibaato loo geysto dhibaato boolis ay haysata ayuu isbeddelka dhacay tani waa qorshooyinka iyo istiraatiijiyadaha lagu xaqiijinayo nabadgelyada dalka deegaanka iyo gobolkaba si loo dalacsiiyo hay'adaha nabadgelyada kala gedisan booliska sababahaas weeyaan ujeedka loo dalacsiinayo booliska waxaan leeyahay booliska la dalacsiinayo ugu horeeya korneelada marka koowaad hambaliyo waxaan aad ugu faraxsanahay inaan hortiina istaaga oo fursad u helay inaan hadalla kooban ka dhaha aad baan ugu faraxsanahay maadaama booliska dhibaatooyin badan loo geystay waxaa kaloo inaan carabka ku dhuftaan doonayaa isbeddelkii kadib waxaad ogtihiin hay'adaha sharciga in loo qaatay in la tayeeyo sida booliska xeer raalinta iyo maxkamadda tayo fiican ayaa loo sameeyaa loo qaatay sidaa darteed tayadii loo qaatay waxay ahayd in xagga garaadka dib looga dhiso aqooneed iyo kan maaragtay shaqada ay ku hayaan sidaa darteed waxaan filayaa inay maanta shaqadiini waxay guursiin aad qaadanaysaan oo qof walba darajadii uu helay ee uu mutaystay shaqadiisa ku mutaystay maanta la siinayo taasina waa wax ilaahay laga heli karo marka waxaa hoggaantii horeysay baa dhamaysay intaasaan kusoo gooraya inaan kasoo qayb galo oon hadal kooban ka yiraahdo xafladda dalacsiinta ee saraakiisha booliska gobolka Hiiraan oo maanta lagu qabanayo xarunta gobolka Hiiraan aad baan ugu faraxsanahay inaan hadal kooban ka yiraahdo saraakiisha la dalacsiin waxaan leenahay kulli wax ku mutaysteen shaqooyinka kala duwan oo wanaagsan oo qabateen kulli saan oo soonahay xukuumadda deegaanka waxay qaadatay in la horumariyo tayada iyo tirada ciidanka taana ka mid tahay maanta arrintan u taagan oo dalacsiinta ah saan wada soonahay 3 sano la soo dhaafay booliska dhinaca tayada iyo tirada waa lagu kordhiyay oo sidoo kale isbedel badan waa laga sameeyay oo intaan boolis oo sanadii ugu dambeeyay oo tirada lagu soo daray waan garanaynaa in la dalacsiiyo haddana ninkaas shaqada u mutaystay darajooyinkiisa la dalacsiin aad baan ugu faraxsanahay maanta balad ku gaarteen badan aan ku wada gaarnay kulay shaqooyin wanaagsan oo qabateen sabab soo maadaama dowladda fiiltan kan joogno gobolka Hiiraan booliska si wanaagsan baan ay shaqooyinka qabteen iyo nabadgelyada wax ka qabteen aad baan ugu soconaa oo ana qayb naga shaqeeyeen marka ku faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galno oo dalacsiinta booliska qayb ka ahno شرفتي دولة النمو دستورك ilaalintiisa lama deganaa shaheeda urus badan la igu siiyey booliskii dalkaanaho daryeel shacabkeena iyo sharaftiyo dowladnimo dastuurka ilaalintiisa lama deganaa shaheeda urus badan la igu siiyey
booliskii dalkaan ahoo diriska waxaanu qaaday dembiga dhacay minkiyo difaaca ka soo socdo midkii tegay dabagalkiisa ilaalinta danaha guud ayaanu diyaarsanahay booliskii dalkaan ahoo diriska waxaanu qaaday dembiga dhacay minkiyo difaaca ka soo socdo midkii tegay dabagalkiisa ilaalinta danaha guud ayaanu diyaarsanahay sidoo kale shacabkii ka soo qayb galay xafladan ayaa iyaguna ka hadlay dareenkooga waxayna cabireen in darajadani ay tahay noocii ugu horeeyay ee laga qaybiyo gobolka Liibaan isla markaana ay filayaan in xubnaha ciidanka booliska waxqabadkooda ay kor u qaadi doonto maamulka gobolka heerarkiisa kala duwan maamulka degmada Fiildo muxuu ahaa alxamdulillah booliska heer gobol iyo heer degma dhammaan marti sharafta muxuu ahaa urumada alxamdulillah hooyooyinka ugaasyada dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta muslimka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi bagan iskugu nimid maanta xafladda dalacsiinta booliska gobolka Liibaan toddobadiisa degma waxaan leenahay ilaahay subxaanahu qaadirka ahay yaan u mahadnaqaynaa waxaan u mahadnaqaynaa xukuumaddeena sharafta leh oo booliskeenii la baabi'iyey soo nooleysay waxaan ogsoonahay booliska halka fadhiya kala bar in la ceyri iyagoo sharcinaan waxba u dhiman dhibaatana aan geysanin la wada ceyri waa la soo celiyey waxa fadhiyo la dilacsiinaya inay yihiin aan aaminsanahay waa ayagii muxuu ahay booliska waxaan arkaynay asagoona dhibaataynay haddana waxaan aragnaa asagoo alxamdulillah nabadgelyada sugaya tuugada qabanaya dhaxanta taagan qoraxda taagan dhibaatada taagan nabadgelyo iyo alxamdulillah kala jeclaysin aan lahayn yaan u jeednaa oo muxuu ahaay commissioner ka horreeyay ninkaan commissionka Ibrahim oo joogo commissioner ka horreeyay commissioner kale ka horreeyay kuma arkay kuma uriya iyo ummadayna soo hasuuqa ilaahay dhaaf waa Ibrahim wax u dhimaad waa ka dalacsiinaya waa ka muxuu ahaay dalacsiin konton iyo 6 askari waa maanta ka dalacay saraakiil waa saraakiishannadi ma ila iska dalacsiinaa mise waa dhab waxaan leenahay dhab ay xaq u leeyihiin xaq ay u leeyihiin dhibaatada ku dhacday bay xaq u leeyihiin gacmo furnaan ku soo dhaweynayna haddaan nahay dhaqankan waxaan garab taagnaa anaga waa boolis waxaan garab taaganahay oo muxuu ahaay in la xaqirana aanan ogoleen inay iyagana dhibaato geystaan aanan ogoleen inay ummaddu u adeegaan aan aaminsannahayna waa boolis خير بدن الله يسيء وروا صار دمالي كوي دلعينا كوان دلعينا إذا كان ديبا كدلع دونتان كوي هذا دلعينا واحد كل دلعدين وشعب كينا نحن وجرا خير بدن الله يسيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرفتي دولة النمو دستورك ilaalintiisa laba deganaa shaheeda urus badan la igu siiyey booliskii dalkaan ahoo daryeel shacabkeena iyo sharaftiyo dowladnimo dastورka ilaalintiisa laba deganaa shaheeda urus badan la igu siiyey booliskii dalkaan ahoo diriska waxaanu qaaday dembiga dhacay minkiyo difaaca ka soo socdo midkii tegay dabagalkiisa ilaalinta danaha guud ayaanu diyaarsanahay
booliski dalkaan ahoo deriska waxaanu qaaday dambiga dhacay mikiyo difaaca ka soo socdo midkii tagay dabagalkiisa ilaalinta danaha guud ayaanu diyaarsanahay aadna waa u faraxsanahayo waa maalinta koowaad oo gobolka Liibaan dalacsiintii booliska gobolka liigu yeeray maalinta koowaad ee qiita ilaahay baa ugu mahadceliyay aadna ugu faraxsanahay waxaan taas ida ku cadaynaynaa haddaan nahay odayaalkii waddanka joogay runta marka la sheega ragga meesha fadhiyo oo maanta dalacaya qaar xabsi ku jiray iyo qaar xilka laga qaaday oo shacab inay ahaayeen ogsoona maanta maadaama noogu yeeray dalacsiintii booliska nin garaado wato kor ka soo qaato loo yimaado waa aragnay laakiin gobolkeena dhexdiisa oo saraakiil xigeenkii dableydi alifleydi loogu yeeray oo kaaliga ka soo qayb galanaleeya waa maalinta koowaad horta maalin qaali ay noo tahay sidii loo wada sheegay ilaahay baan ugu mahadcelinaynaa xukuumadda sharafta ahaan ugu mahadcelinaynaa wax aan sheegno oo hadal oo noo haray male laakiin waxaan leenahay kabaha shacabkaad ahaydeen awalba haddana waa waqtiyo kusii dallacdeen inay noogu sii adeegtaan baan haddana idiin soo jeedinaynaa in kula dardaarmaynaa waana kugu duceynaynaa inaad xilka ilaahay idinku asturo waa waxaan loogu faraxsan yahay aadaan ugu faraxsannahay oo maaragtay ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo xukuumaddaba loogu mahadceliyay taa waa intaas tan kale boliista waa badbaadada ummadda boliista waa badbaadada ummadda waxay qabtaanna waa wax la wada ogsoon yahay taariikhda ku jiro annagana aan markhaati ka nahay boliis lama dhihi kara annaga waxaan leeyaynaa waa badbaadada ummadda odayaalka dhaqanka iyo waxay iskugu dhow inta wada shaqaysa iyo boliista iskugu dhow waxaan dhihi karnaa waa lagu diirsaday inta dhibaato ay hor taagan yihiin ama ay habeen iyo maalin ka adeegaan wax la soo koobi kara maaha waxaan leenahay waxa loo gartay wax ka badan ay mudnaayeen waana gaari doonaan ilaahay idinkiisa waxaa iswaafaqay ayaga shaqadoodii wanaagsaneed iyo ka run sheegidii xukuumadda deegaanka Soomaalida iyo xisbiga burwaaqa ballantii qaadeen ka run sheegideedii iyo shaqadii wanaagsaneed ee booliska qabataa iswaafaqday arrintan aan lagu gaarin waxaan kula dardaarmaynaa ayagana halkeedii inay ka sii wadaan si ayaga hadda wax maaragtay la dalacsiina ay u sii dalacaan inta dambe oo ku daba jirtana heerka ayaga gaareen mid lamid ay u gaaraan inay halkoodii ka sii wadaan oo kula dardaarmaynaa kolleyba boliista sida aan looga maarmin waxyaabaha asaasiga ee ummadda ay uga maarminaan looga maarminaan dhihi karnaa boliista waa mutaysteen bagayna u soo gaareen ciddii maaragtay ka soo shaqaysay arrintaana waa u mahadcelinaynaa aadaan ugu faraxsan lahay booliskii dalkaan ahoo daryeel shacabkeena iyo sharaftiyo dowladnimo dastuurka ilaalintiisa nabadeganaashaheeda durus badan laygu siiyey booliskii dalkaan ahoo daryeel shacabkeena iyo sharaftiyo dowladnimo dastuurka ilaalintiisa nabadeganaashaheeda durus badan laygu siiyey booliski dalkaan ahoo deriska waxaanu qaaday dambiga dhacay mikiyo difaaca ka soo socdo midkii tagay dabagalkiisa ilaalinta danaha guud ayaanu diyaarsanahay booliski dalkaan ahoo deriska waxaanu qaaday dambiga dhacay mikiyo difaaca ka soo socdo midkii tagay dabagalkiisa ilaalinta danaha guud ayaanu diyaarsanahay
gabagabadii xafladan dalacsiinta xubnaha booliska ee gobolka Liibaan ayaa halkaasi lagu soo gabagabeeyay iyada oo la guddoonsiiyay xubnihii mutays dalacsiintan halkaasina loogu talay darajooyinkii kala duwan iyadoo xafladan noocan oo kale ay ka dhaceen dhammaan gobolada uu ka kooban yahay deegaanka Soomaalidu laguna dalacsiinayay saraakiisha kala duwan ee uu ka kooban yahay booliska deegaanka Soomaalidu wahagaag akhyaarta sharafta leh wada tooska nagula soo barnaamijkeeni toddobaadkan aynu joogo barnaamijka waxa la socodsiinaya anoo Ciga Axmed Buuxa waa isku soo dabareedkii saaxiibkii Cabdinaasir Seraara waa bahda warbaahinta komishanka booliska oo isku duuban oo igu dhaafaya sida assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh